daawade halka daawanayso waa janaalka Cabdiis Official fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkan ama ay tahay boqoshadaada kugu horeysay aad soo booqato subscribe saameysani saaxiibayaal waxaan idin soo gudbinayaa sheekadii guusha ee Morgan Freeman waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka taariikhdu markay ahayd 1 Juun 1937 waqtigaas oo ku beegneed waqtigii midabtagoorka lagu hayay dadka madow iyadoo ay ugu wacan tahay dhibaatadan iyo cadaadiska midabtakoorka qoyskiisa waxay go'aansadeen inay u guuraan meel kale si ay ugu noolaadaan nolol ka fiican tan waqtigan dalkooda ka jirta. Morgan waxa uu jeclaa inuu noqdo actor lacagtiisa iyo waqtigiisa inta badan waxa uu ku bixin jiray sidoo uu daawado filimaanta marar badan waxa uu isu dayay inuu noqdo actor balse kumuusan guuleysan. Waqti aad u dheer kadib Morgan waxa uu xaqiiqsaday inuu mihnada uu u jecel yahay ay tahay actornimada waxa uu go'aansaday inuu daba socdo oo uusan ka hadhin sida uu u noqon lahaa actor. Morgan da'diisu waxay gaadhay 45 jir isagoo wax guul weyn ha gaadhin laakiin muuniyad jabin waxa uu sii wada isku daygii uu ku guuleystay markay ay da'diisu noqotay 50 jir ilaa uu kama dambeyntii jilo filimaan badan markay ay da'diisu noqotay 67 jir Morgan waxa uu ku guuleystay biladda aflaamta ee loo yaqaan Oscar Prize kadib jilidiisa oo loo wada bogay ee filimkii la magac baxay $1 Million Baby. Si aad u gaadho guul adiga waa inaad guul darooyin badan la kulantaa waliya hadiyeen haddii aad guul dareysato way guul daradu waxay ku bartaa guusha. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.